بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cabdiraxmaan aadan waxaan jeclahay in aan halkan idinku soo bandhigo barnaamij la magac baxay idinkana qalinka iyo bug anigana hawshii wixii qabaleed oo iyo gabdho ay qaba lahaayeen anigu inaan qabto balankana buuga iyo qalinka anna hawsha inteeda kale tii hooyo iyo gabdhahaba kan waa barnaamij gaar ahaaneed ee ku saabsan qoys Soomaaliyeed oo iyagu ahmiyad siyaabo fara badan u leh marka la barbar dhigo qoysaska kale ee Soomaaliyeed ee soo qaxay dalka Mareykanka. Yuusuf Maxamed Xareed ayaa isagu ah aabba kaligiis ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo single father oo isagu ah nin qisadiisa iyo noloshiisuba ay cajaa'ib iyo yaaba leeyihiin. Yuusuf Xareed wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1932. Yuusuf wuxuu ka soo shaqeeyay dawladii Talyaaniga ee iyadu gumaysan jirtay dalka Soomaaliyeed kadibna wuxuu soo shaqeeyay safaaradii Jarmalka oo uu muddo dheer iyana u shaqeynayay. waxa inta dheera shaqooyin kala duwan ee adeeg bulsho ah ee Yuusuf uu soo qabtay intii uu Soomaaliya joogay. Yuusuf ayaa isagu soo maray dalalka Yurub badankooda isla markaasna aan nin ku xeel dheer la shaqeynta dhaqamada kala duwan. marka dagaalka sokeeye dhacay Yuusuf ayaa isagu markaas gacanta ku hayay kaligiis 5 caruur oo dhalay oo isugu jira 3 hablood ama gabdhood iyo 2 wiil oo uu aabbe ahaantiisa u soo koriyay iyagoon hooyadood la joogin. Yuusuf ayaa sidoo kale leh caruur kale oo iyana dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku nool. Yuusuf ayaa xiriyaha qaxootiga isagu ku hayay 5 caruur oo isugu jira 3 gabdhood iyo 2 wiil sida aad ka arki kartaan sawirada. Yuusuf iyo 5 caruur ayaa yimid dalka Mareykanka gobolka Minnesota magaaladiisa Minneapolis halkaas oo ilmihiisu ay ka bilaabeen dugsiyada hoose iyo dhexe. Yuusuf ayaa isagu ahaa waalid Soomaaliyeed ee Soomaalida ka caawiya dhinacyada guryaha iyo qalabka isla markaasna xoogiisa waqtigiisa iyo gaadiidkiisaba ugu tabaruci jiray Soomaalida ku nool deegaankan loo yaqaano Philippines iyo agagaarka magaalooyinka mataanaha ah. Yuusuf ayaa ilmihiisa ku booriyay kalana hadlay dhibaatooyinka oo ay ka soo mareen xiriyaha qaxootiga isla markaasna ku dhiirigeliyay in sida kaliya ee naftooda iyo isagaba wax u tari karaan ay tahay inay wax bartaan. kuna yiri adinkana qalinka iyo buuga anna hawsha inteeda kale tii gabdhaha iyo hooyo barbarkay ka baxdaa waaba kay la qaleen. waxaan doonayaa inaad waxbarashadiina iyo aadaabtiina ka shaqaysaan aadna wax barataan dadka aadamaha ahna asluub wanaagsan iyo edab kula dhaqmataan. waa sidoo Yuusuf hadalka u dhigay. balankeena waa sidaas. Yuusuf ayaa ilmaha si joogta uga soo qaadi jiray dugsiyadooda marka ay dhameystaan dugsiga iyo waxbarashada dugsiga kadib isla markaasna geyn jiray maktabadaha kala duwan ee Minneapolis maalin walbana ka soo qaadi jiray oo keeni jiray guriga. ognahay waxa weeye mid kaliya inaad qalinka iyo buugga waxaad barataan taas ayaa aniga muhiimadda saaray. muhiimadda weyn ma aanan saarin inay intaqaan jikka iyo guri iyo howlahaas inay qabtaan laakiin muhiimadda weyn waxaan saaray qalinka iyo buugga inay wax bartaan waxaas hooyada iyo gabdho ay qaba lahaayeen aniga inaan qabto. Gandhi Maxamed oo isagu ugu weynaa caruurta ayaa sanadkii 1999 ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Roosevelt isla markaasna nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciidamada cirka dalka Mareykanka. Yuusuf xaflad aad loo agaasimay oo sagootiisa u sameeyay Gandhi isla markaasna ku wada casumay waxgaradka Soomaaliyeed ee jiiraanka Philippines si ay ula dardaarmaan. waxaa ka hadlay goobtaasi Yuusuf Xareed oo isagu u mahadceliyay guud ahaan asxaabtii iyo jiiraankii soo ajiibay caasimada. Cabdullaahi Guuleed, Cusmaan Saxardiid oo loo yaqaan Cadaani, Cabdinuur Isbraash, Gandhi oo ah ninka isagu laga hadlayo iyo Saada Cali Warsame oo iyadu ah fanaanad caana ila wada yaqaan. midda aan hamayay oo aan ku dhimanay waxay inaan mustaqbal ay gaaraan awlaad ay noqonin kuwa dariiqyada yani
waxaan dadkiina Soomaalida idinku boorinayaa kula dardaarmay inaad awlaadiina wax bartaan ogaataan inay wax bartaan in kale akhlaaqdooda ilaalisan future-kooda ilaalisan maxaa jira future-kiisa ilmaha future-kooda waa kiina haddaadnaan ilmaha waalidiinta aadnaa wax bar awlaadda aadnaa wax bar ayaguna isafcin maayaan idinkana wax laydin afcin maa waa inaad ilmaha gacanada ku qabataan waxbarashadooda ogaataan dhibcahooda ogaataan adaabtooda ogaataan waxaa runtii mahad leh ammaanna leh yuusuf xareed in badan baa aragteen run ahaantiisa ummadda Soomaaliyeed hooyo keliya carruurta haysta aad hooyooyin fara badan oo carruurta la rafaada yuusuf saa ogtihiin waa keligii ayuu carruurtan lix carruura ayuu maxaan ku dhahdaa la soo halgamay 7 waqti dheer waana aragtaan carruurtaas akhlaaqdooda iyo aayahooda gaandi baa u weyn maxaan ku dhahdaa una future-kii ugu horreeyay inuu yahay oo maanta Air Force-ka Mareykanka ay noqotay ma hadda iyo يعني halkan kaad la soo halgantay waa mid adigoo quraya family-giina anfacaysa maahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto run ahaantii aaya iyo qiimo u leh Yusuf wuxuu leeyahay sharaf aad iyo aad u qiimo badan maxaa jira intayadaas oo dhan ilaahay amarkiisa horta ku nim hase yeeshee isaga soo ka yeelay waa mahad ilaahay dad badan baa la soo sharfeen oo saa loogu yimaadeen waxa qof waliba hawshiisii uga yimi waa sharafta iyo wanaaga uu leeyahay iyo odaynimada taas baa keentay qof waliba inuu hawshiisa ka yimaado xafladda ka soo qayb waxa waliba siyaada ah inanka oo dadka badankiisu ogyahay inuu inan fiican yahay fiicnaantaas uu inanku leeyahay ilaahay baa horta u yeelay oo ku mahad leh laakiin haddaanu gacan wanaagsan ku jirin ma uu yeesheen sidii uu maasanteed maanta maateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay midaas ka xarweynaan aabbahay igu soo dadaalay oo waxbarashada igu qaadin jiray aad waa ku maasantaa midda labaad waxaan ii sheegaa inaan ku dadaalo waxbarashada inaan diinta iloobeynin inaan wax kasta oo awooddeeda inaan ku dadaalo inaan meel ka soo baxo telefishinka Soomaalida ee Minneapolis ee loo yaqaan Som TV wariyihiisa Maxamed Xuseen Shiino ayaa la yeeshay Yusuf Xareed iyo carruurtiisa waraysi aad u dheer oo dhinacyo badan isla sanadkii 1999 waraysigaasi oo dheer ah ayuu wariye Shiine Yusuf Xareed ku weydiiyay arrimo fara badan oo qoyskiisa la xiriira waxaana ka mid ahaa dhibta ay leedahay aabba kaliya oo carruur gabdho iyo wiilal isugu jira korinaya wixii uu ka oran lahaa waalidka kale ee Soomaaliyeed ee aabba iyo hooyo haddii ay maalinkan maanta maqlayaan labada qoys ummadda dadoo iska jiraan leh kala tagga carruurta kala tagga labada qofood waalid carruurta ku baaysa qof walba ee waalid waxaan ku waaninay kula dardaarmay dhibkaas waan soo maray awlaadana uma fiicna oo quluubta awlaadu way dhumaysaa way xumaanaysaa akhlaaqdooda way xumaanaysaa waxbarashadooda way xumaanaysaa dadka waxaan farayaa inay iska ilaaliyaan kala tagga labada waalid qofka doonaya awlaadda doonaya inuu fiiriyo inuusan xumaynin dhaqanka wariye Shiina ayaa ilmaha mid u wareystay kana wareystay wixii ay ka oran lahaayeen qoysaska Soomaaliyeed oo aabe iyo hooyo ah ee doonaya inay kala tagaan ama mid uu kan kala ka tago iyo sababaha ay ugu wacan tahay ilmuhu haddii la helayo in labada waalid wada joogaan iyo waxyaabo fara badan oo noloshooda mustaqbalka la xiriira in Saleyman waxa weeyaan aad maxad kuugu darnaa marka aad nolosha dib aad u fiiriso maaragtay aad tirahdo aleelaha waxaan ka fiicnaan lahaa waxaa ugu darnaa goortaan hooyo naga tegaysa markaas waxaastaa ugu darnaa waxaa ka xasuustaa mid fiican iyo mid xun iyo qaxar
hooyo la-aan kusoo kornay aabba keligiisana soo kariyey intaasoo sidaas ahayd waxaa noloshani waa nolol mid waxaa jirtay qayb fiican iyo qayb xun iyo qayb farxad intaasoo kusoo kornay hal gabdhaha hal aabbe baan lahayn hooyo nolama joogin intaas sidaasoo marka waxaa farxad ku leenahay aabbaheen iyo reerkeen iyo abtiyaasheen iyo addooyinkan oo na soo garab galay oo na soo caawiyay intaas ayaan ku mahadnaqaynaa haddaad mahadsantahay gandi waxaan jeclahay bal inaan ikraam siiyo su-aashan oon idhaahdo bal dhinaca gabdhaha sida uu gandi sheegay iyadoo noloshiinu ahayd mid aad ku xusi kartaan inay fiicnayd iyo mid kale balse gabdha ahaan ikraamey waxa weeyaan hooyo oo idinka maqnayd qof hooyo oo aad ku dayataan oo howlo fara badan oo hooyadu ay qaban jirtay ama dumarka oo idinka maqnayd gabdhahaan wixii idinku adkaa dhinaca nolosha intii aad aabba keliya la soo noolaydeen ee aad korayseen iyo dhibaatooyinka fara badan aad soo marayseen maxay tahay ikraam والله شيء هوايدين تدبر سنة دانا كم قنتها أبل أمين هواي الآن جرني أبين صف عن سكري هواي أبو بناها وحي قبلها من العاوي وهاي وحناسه ده هالسنة second mother-na أنا كان adu si aad u aragtay maadaama tay gabadhii reerka ugu yareyd oo laga yaabo wax fara badan ba inaadan hooyo ku soo caqliin noloshan iyo amuurta maxaa kuugu darna adiga oo dhibsataa أنا بديت وحاي hooyo la-aan kusoo kornay aabahay wax kasta noo waxeeyo markaas dhibteeda waxaa waaye hooyaday inaan arkaa rabaa haddii maanta adaa u jooga hooyo ay kaa hor iman lahayd oo aad doonayso hooyada ama inaad u mahadnaqdo maxaad oran lahayd hooyo we miss you aragna waan ku jecelnahay hal maalin inaan ku arkaa rabaa inaan kula joogo su-aashan ugu dambaysa aan ku gabagabeeyo aan siiyo ifraax iyo ikraan labadiina midkiiba marka ka hadlo haddii maanta hooyo iyo aabbo reer kala tegaya caruur ay leeyihiin maxaad ku waan lahayd labadaba ninkana maxaad oran lahayd gabadhana maxaad oran lahayd labadooda waxaa u sheegi lahaa nin iyo naag midtay yihiinba waxaan dhihi lahaa ciyaalka markay ka tagaan oo mid ama aabbaha haysta ama hooyada haysta mid lay haynayo ciyaalka waxay u baahan yihiin laba qof meesha joogto hadday qofkan waxay kula hadli karin ay maanta isku qayliyaan qof kale intay ula tagaan ay la hadlaan ay ku dhihi lahaayeen hooyo waxaana jira ama aab waxaana jira you know it's hard marka hal parent la joogtida isku qaylisin or they don't understand you you know meel qof kale aan haysatid male oo kula joogo oo laba qof inay ku waaniso fiican instead of one inuu ku waaniyo hal markaad mid wax isku fahmo wadaanka kale la sheekaysa ikraam haday aabe iyo hooyo iskala tagaan family dhawaa kala baxaya ama mid kale wax u sheegtid instead of you know kaliya meesha iska fadhidid wax qof kale wax u sheegaysa male so waxaan u sheegi lahaa dadka Soomaalida dhan inay isla joogaan haddayna isla joogina labadoodaba inay isku meel at least ku noolaadaan si ciyaalkaas si fiican u haayaan way kala dhacayaan meel la kala dhacayaan ciyaalkii hadduu aabba tago aabbiyaa rabaa inay aada dhahayaan hooyadii hadday tagto hooyadiina aada rabaa dhahayaan haddii hal qof isku xanaaqaan se walaasha dhahday cunuga wuxuu rabayaa qofkii oo ka maqan yahay inuu aado wuu isdhahayaa inuu hooyadii haddaa la joogi lahaa ama aabbahay la joogi lahaa saan liima yeeli lahayn saan liguma qaylin lahayn kani kaas marka cunuga waxaan kanuu iloobayaa aabbihii ama hooyadii waxbuu kala iloobayaa wuxuu isdhahayaa hooyadii aad tagtay anuu iska tagayaa marka familida oo single fathers or single mothers waxaan sheegay ciyaalkii ku dadaal gacanta ku haaya hooyo aabadan isla joogaan kala tagin ciyaalka mataqaanin waxay ku baxayaan oo ku noqonayaan inta kala tagtiin dugsiyada dadweynaha Minneapolis ayaa waxay bilaabeen shir bileedle ay u qabanayaan waalidka Soomaaliyeed ee ilmahooda ay dhigtaan dugsiyada dadweynaha Minneapolis. Shir bileedlahaasi waxaa waalidka loogu bandhigay macluumaadyo ay u baahan yihiin si ay waalidka uga caawiyaan ilmahooda inay ugu guuleystaan waxbarashada. shirkaasi ay dugsiyada
dadweynaha minneapolis ku eegaan bal inay aqoonsadaan garwaaqsadaan dadaalka waalidka isagu qaaday dadaal iyo firfircooni aan la biciidsan karin haddaba sana dugsiyeedka 2009 ayaa dugsiyada dadweynaha minneapolis u aqoonsadeen yuusuf maxamed xareed inuu yahay aabe ama waalid aad iyo aad uga soo dhalaalay xilkii isagoo run ahaantii ahaa aabe kaliya oo carruurtiisa soo koriyey kana soo gudbiyey caqabado kala duwan dugsiyada dadweynaha minneapolis ayaa garwaaqsaday dadaalka iyo kartida yuusuf xareed uu la soo maray carruurtiisa waxaana dugsiyada dadweynaha minneapolis guddoonsiiyey yuusuf maxamed xareed shahaado waalid VIP oo u taagan very important person oo ay ku garwaaqsanayaan dadaalkiisa iyo hawlkarnimada aabanimo Bernadette Johnson kormeeraha guud ee dugsiyada dadweynaha Minneapolis ayaa iyadu tilmaantay erayada uu Yuusuf Xareed hal ku dhag ahaanta u adeegsanayay oo ahayd waa sidoo hadalka u dhigay adinkana buuga iyo qalinka anna hawsha inteeda kale tii aabe iyo tii gabdhaha iguda waxaan leeyahay dowladda Mareykanka shacabka Mareykanka wasaaradda waxbarashada mahad weyn aan u celinaa heerka awlaadii aan ku soo mitiday ku soo dhintay soo koriyey ayay la koriyeen waxay bareen mid wanaagsan ay maanta goranayaan anuguna aanu harsanaya anigoo ku hadlaya magaca Yuusuf waxaan u mahad celinayaa dhammaan waalidiinta intaan timid shirkan waalidiinta Soomaaliyeed ugu horeyntii Ilaahay baa mahad leh waxa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dawladda Mareykanka oo iyadu naga soo qaaday noloshii qaxootinimada isla markaana noo suurtagelisay hooy dawo ammaan iyo waxbarasho waa inaanan iloobin abaalka la inoo galay waxaan aaminsanahay in ay Amerika iyaduna sidaasi oo kale naga mudan tahay waxaan mahadnaq xoogan iyo bogaadin u celinayaa dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis macallimiintooda shaqaalahooda howlka ah waxbaridda iyo abaabinta carruurteena in ay u noqdaan kuwa ku guuleysta dugsiyada iyo noloshooda guud ahaaneed intuba ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mar labaad mahad leh wixii aan ku haminayay ilaahay waa ii rumeeyey dadaalkayagii alle iguma qadin waxaan aaminsanahay in ay iyana aniga igu dayataan waxaan rumaysanahay in waalid kasta la shaqeeyo iskuulka ilmihiisa dhigtaan isla markaana hubiyo adaabtooda iyo in ay iskuulka mar walba tagaan oo aynan iskuulka marna goosgooska noqonin iskuullada Minneapolis waxaa hadda dhigta carruur aan awoowo u ahay waayo waxaan aaminsanahay dadaalka iyo kartida madaxda iyo macallimiinta iskuulaadka Minneapolis waadna mahadsantihiin Mr. Xareed came and met with me this past week, wanted to share his story with me, and so we wanted to recognize him for not only being a single parent who raised these children, got them to school every day, stressed the importance of reading and doing their education. He said, I'll stay at home. I'll do all I need to do at home. Your job is to get a good education. And so he did this. So look at this. So tonight, okay. asbuuca la soo dhaafay ayaa waxaa xafiiskayga igula kulmay Yuusuf Xareed oo isagu ah waalid Soomaaliyeed isla markaasna si yidi diila leh ama qaabka idin muuqda dhabarkiisa aad ku aragto
qoys aad u ballaaran isugu jira in uu dhalay iyo in uu awoow u yahay taasoo ay ka muuqato dadaal xooggan oo innaba aan caadi ahayn in uu sameeyey. So thanks to my colleagues, we had a really great ideas like how do we recognize someone like this? So we decided to frame the certificate. Minneapolis Public Schools recognized Yusuf Muhammad Harad, a Minneapolis Public Schools VIP, very involved parent. Mr. Harad, on behalf of myself and the district, I wish to sincerely and formally thank you for your support, your leadership, and for your contribution to the Minneapolis Public Schools. Thank you for what you've done and what you continue to do to serve as a role model for all of us. Thank you. Yusuf anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis waxaan jeclahay inaan ku guddoonsiiyo hadiyadda shahaadada oo iyada aad ku mutaysatay waxqabadkaagii iyo dadaalkaagii waxaan kaaga mahadcelinaynaa xiriirka wanaagsan wada shaqaynta aad la leedahay dugsiyada dadweynaha waxaan ku leenahay mahadsanid. Hi. Congratulations, Adar Khaled. Thank you. Congratulations, Adar Khaled. I'm very happy for you. Yeah, me too. Me too.